barnaamijka garow guuleysay shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel magacaaga noogu bilow magacayga Xasan Maxamed Cabdi xasan oo xaafadda ka degtay magaalada Hargeysa boqol ku taga halkan ay joogno waan ku faraxsan inaan goobtaada shaqo kuugu nimidnay xaafadaada kugu soo booqanay Samtel ma isticmaalaad su'aal baan ku weydiinayaa su'aashu waxay koranaysaa waxaad noo sheegtaa habka ugu fudud ee adeega muraade maalinlaha lacagta loogu shuban karo iyo markaad ku shubatid 5% inta saacadood ku hadli kartid habka ugu fudud muraad lagu shuban karo waa xidig 101 afar gees waa dooranaysa markaa wuxuu ku soo dhigay muraad maalinle marka dooratid mise saacadood baad ku hadli kartaa haddaad ku shubatid 8 habeenimo haddana kala ka gooya habeen dambe haddana marka inta saacadood baad afarta saacadood waan ku ambaliyeenayaa guuleystii koobaad baa tahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay goobtaada shaqo jooga inaan kugu nimaadno aad guuleysato waxaad ku guuleysatay $5 oo adeega muraade su'aashu ay la xidhiidhaa muddo hal bilood si lacag la'aan telefoonkaaga Samtel ugu hadlaysaa shirkadda maxaad leedahay shirkadda Samtel waxaan leeyahay dadaalkiina ka sii wada aad iyo aad baad maasantiin ana waan isticmaalaa mar walba ma garanaysa xitaa waxa casriyo ay keentay inaad habta ka fogaatado goobtaada shaqo jooga tii bila sawira marka waa casri waa kula Samtel هذا موضوع walaal ku soo dhawo barnaamijka garow guuleysay shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel ugu horeynta magacaaga noogu bilow bismillaahir rahmaanir rahiim waan ku dhawahay marka koobaad magacaaguna waa Cali Bashiir Yuusuf Cali oo xaafadda ka degtay magaalada Hargeysa walaal waxaan deganahay xaafadda Garshawadan Samtel ma isticmaashay waan isticmaalaa su'aal baan ku weydiinayaa su'aashu waxay koranaysaa Cali waxaad noo sheegtaa habka ugu fudud ee adeega muraad ee maalinlaha lacagta loogu shuban karo iyo inta saacadood ee lagu hadli karo waa adeega maalinlaha horta adeega maalinlaha waxa lagu hadlaa waa 24 saacadood laakiin qaabka loogu shubanay dadka kamida sama kaga shubtay garan liidaafka kaga waasho kaga waasho liidaafka kamida ba kaga shubtaa insha Allah xariijinay imka laga bilaabo kaga shubado insha Allah ku soo dhaw barnaamijka garow guuleysay shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel ugu horeynta magacaaga noogu bilow xasan yaxay maxamed xasan ma sha Allah ku soo dhaw barnaamijka waa kugu soo dhaweynayaa Samtel ma isticmaashaa waan isticmaalnaa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal la xiriira adeegyada Samtel ay bixiso waxaad noo sheegtaa habka ugu fudud ee adeega muraad ee maalinlaha lacagta loogu shuban karo iyo inta saacadood lagu hadli karo horta Samtel fiican tahay internet-ku iyo waxaas dhan aad u fiican tahay wali internet u fiican tahay aad marka internet-ku ba isticmaashaa san shanaad waan joogaa Hargeysa ma sha Allah laakiin ku hadalka ma isticmaashaa waan isticmaalnaa muraad ma isticmaashaa waan isticmaalnaa marka muraad maalinlaha adeeg waxa jira muraad maalin la yiraahdo ma taqaan habka ugu fudud ee loogu shuban karo wali waxaas uu cusub yahay laakiin waxaan isticmaalaa internet-ka iyo hadalka waan ku hambalyeynaa maasantahay ku soo dhaw walaal barnaamijka garow guuleysay ee shirkadda isgaarsiinta casriga ee Samtel magacaaga noogu bilow waan ku dhawahay walaal magacaygu waa Cumar Cabdi Aadan Cumar xaafadda ka degantay magaalada Hargeysa xawaadle walaal Samtel ma isticmaashay waan isticmaalaa su'aal baan ku weydiinayaa su'aashu waxay koranaysaa waxaad noo sheegtaa habka ugu fudud ee adeega muraad ee maalinlaha lacagta loogu shuban karo iyo inta saacadood aad isticmaali kartid waxa weeyaan waa 101 waa xidig 101 afar gees okay lambarka lacagta imsa saacadood isticmaali kartid mid waxa weeyaan mid waa 24 hours midna waa 7 aad iyo aad baan maasantahay waan ku hambalyeynaa waad guuleysatay maxaa leedahay shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel aad baan ugu mahad celinaa shirkadda Samtel barnaamijyadan ay dadka ku dhiirigelinayso iyo baqtiyaar nasiibada waan hambalyeynaa shirkadda anaguna waan ku hambalyeynaa waxaad ku guuleysatay xirmooyin isugu jira internet iyo ku hadal hambalyeena ku leenahay hambalyo sidoo kale aad baan ugu mahadnaqay wala ku soo dhaw barnaamijka garow guuleysay shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel ku soo dhaw magacaaga noogu bilow waa dhawahay magacayga waa Daahir Maxamed Xasan Daahir waxa xaafadda ka degantay magaalada Hargeysa waxaan deganahay xaafad magaalada Biixi la dhaado ma isticmaashaa shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel waan isticmaalaa su'aal baan ku weydiinayaa su'aashu waxay koranaysaa waxaad noo sheegtaa adeega muraad ee maalinlaha habka ugu fudud ee lacagta loogu shuban karo iyo inta saacadood ee la isticmaali karo waa adeega muraad ee maalinlaha bismillaah haddii aan isku dayo su'aashaas 101 xidig 101 afar gees ayaad markaa wada isticmaalaysaa imsa saacadood oo isticmaalay ugu yaraan adoo 24 saacadood bay isticmaalaysaa waan ku hambalyeynaa waad guuleysatay maxaa leedahay shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa shirkadaas waa maasantahay $10 oo internet oo muddo hal bilo bilaash oo internet aad ku guuleysatay waa maasantii wala ku soo dhaw barnaamijka garow guuleysay shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel magacaaga noogu bilow magacayga Maxamed Cabdi Abiib maxamuud oo xaafadda ka degtay magaalada Hargeysa Samtel ma isticmaashaa su'aal baan ku weydiinayaa su'aashu waxay koranaysaa waxaad noo sheegtaa habka ugu fudud ee adeega muraad ee maalinlaha aad lacagta ugu shuban kartid iyo inta saacadood aad ku hadli kartid okay 101 afar gees iyo 24 saacadood ku soo celi maxaa 101
ميد حدق وسيراون أفرجيس بين كاجد جلس أفر لا تسع waan ku hambalyeynaya waad guuleystay xirmooyin internet iyo ku hadal isugu jira shirkadda maxaad leedahay شركة waxaan leedahay hambaliyo insha Allah faa'iidada noo keenteen inta si laba jifartaba insha Allah shaqaysana aad iyo aad ma santo laqa ku soo dhow barnaamijka garooga guuleystay shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel magacaaga noogu bilow wal magacayga maxamed Cabdiraxmaan oo ku dhow walaal maxamed waad maasantay Samtel ba isticmaashay ha walaal xaafidada ka degantay magaalada Hargeysa idaacadda su'aal baan ku weydiinayaa su'aashu waxay koonaysaa waxaad noo sheegtaa habka ugu fudud ee adeegga muraad ee maalinlaha aad lacagta ugu shuban kartid iyo inta saacadood aad isticmaali kartid wal waxaad ugu shuban kartaa xiddig 101 Fargees waxaan isticmaali kartaa 24 saacadood waan ku hambalyeynaya $15 oo internet aad ku guuleysatay maxaa la shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel shirkadda Samtel u wanaagsantahay waxaan leenahay halka ka sii wada macaamiishiina soo dhaweeya ku soo dhawaada barnaamijka garooga guuleystay shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel magacaaga noogu bilow magacaygu waa Xasan Axmed Aadan xasan oo Samtel ba isticmaashay ha xaafadda ka degantay magaalada Hargeysa geershaade su'aal baan ku weydiinayaa su'aashu waxay koonaysaa waxaad noo sheegtaa habka ugu fudud ee adeegga muraad ee maalinlaha ah aad lacagta ugu shuban kartid iyo inta saacadood aad isticmaali kartid waxa weeye xiddig 101 Fargees 24 saacadood isticmaali karaa waan ku hambalyeynaya waxaad ku guuleysatay xirmooyin hadala maxaa leedahay shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel shirkadda isgaarsiinta casriga noo soo gordhay waxaan isleeyahay hambaliyo insha Allah waan ku soo dhaw barnaamijka garooga guuleystay shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel magacaaga noogu bilow ugu horeyntii wad ku maadsantay walaal magacaygu waa Maxamed Cabdilaahi Cumar waxaan deganahay xaafadda idaacadda Samtel ma isticmaashay aad iyo aad su'aal baan ku weydiinayaa su'aashu waxay koonaysaa waxaad noo sheegtaa habka ugu fudud ee adeegga muraad ee maalinlaha lacagta loogu shuban karo walaal waxa weeye xiddig 01 Fargees 24 saac oo la isticmaalo xiddig 01 Fargees waa mahadsan aad u mahadsan ku soo dhawaada barnaamijka garooga guuleystay shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel magacaaga noogu bilow magacayga waa Mustafa Cumar Yuusuf wandhow walaal Mustafa Samtel ma isticmaashaa aad baan isticmaalaa su'aal baan ku weydiinayaa su'aashu waxay koonaysaa waxaad noo sheegtaa habka ugu fudud ee adeegga muraad ee maalinlaha ah aad lacagta ugu shuban kartid iyo inta saacadood isticmaali kartid waxaa lagu shuban karaa xiddig 101 Fargees waxaad ka sii doonaysaa number 4 inta saacadood ka hadlaysaa 24 saacadood waan ku hambalyeynaya guuleystayaashaad ka mid tahay $14 iyo 99 senti oo internet aad ku guuleysatay maxaa leedahay shirkadda isgaarsiinta shirkadda isgaarsiinta waan hambalyeynaya sida ay ummadda ugu adeegayso waxaan leeyahay hambalyo soo dhawow wala soo dhawow barnaamijka garooga guuleystay shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel ku soo dhawow magacaaga noogu bilow wala horta magacayga waxa weeyaan Sakriya Cabdiga Sakriya xaafadda ka degantay magaalada Hargeysa xagan wiir aan ka degan idaacadda Samtel ma isticmaashay aawna isticmaal su'aal baan ku weydiinayaa su'aashu waxay koonaysaa waxaad noo sheegtaa habka ugu fudud ee adeegga muraad ee maalinlaha aad lacagta ugu shuban kartid iyo inta saacadood isticmaali waxa weeyaan waa xiddig 101 Fargees waxaan isticmaalaa 24 saacadood waan ku hambalyeynaya waad guuleysatay maxaa leedahay shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel wallahi waa shirkadda aad fiican horto anu sidii Samtel u qaatay waa tala soo iska deeyano ma garatay muraadiyaas iska isticmaala wala ku soo dhaw barnaamijka garooga guuleystay shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel magacaaga noogu bilow waa ku dhaw walaal magacaygu waa Xamse Faad Cabdi inaan ka qayb qaato barnaamijkan waan jeclay anaguna waan ku faraxsanahay nagala qayb qaatay Xamse su'aal baan ku weydiinayaa su'aashu waxay ka odhanaysaa waxaad noo sheegtaa habka ugu fudud ee adeegga muraad ee maalinlaha lacagta loogu shuban karo iyo inta saacadood la isticmaali karo marka 25 senti ku shubatay adeegga muraad marka dhactada walaal mise ka adeegga muraad ku hadalka maalinlaha walaal marka waxa isticmaali kartaa 200 saacadood marka aad ku shubato 25 senti baan ugu yar daatadiisuna waxa weeyaan walaal 25 senti ku shubanaysid habka ugu fudud ee loogu shuban karo walaal waxa ku shuban kartaa 77 walaal waxaad uga shuban kartaa 101 baa walaal uga shuban kartaa 101 Fargees marka imse saacadood ku hadlaysaa wala saacada marka la eego waxay noqonaysaa 3 saacadood aad u 200 min 300 min 200 min aad baa maasan ayada walaal ku soo dhaw barnaamijka garooga guuleystay shirkadda isgaarsiinta casriga Samtel magacaaga noogu bilow walaal magacaygu waxa weeyaan Liibaan Aadan Daahir Liibaan waxa xaafadda ka degantay magaalada Hargeysa xaafadda 6 kuma deganay ma sha Allah Samtel ma isticmaashay xawra waan leeyahay su'aal baan ku weydiinayaa su'aashu waxay koonaysaa waxaad noo sheegtaa habka ugu fudud ee adeegga muraad ee maalinlaha lacagta looga shuban karo iyo dahabkaaga marka haddii aad ku shubatidna inta saacadood aad ku hadli kartid horta dhactada mise muraadka ee maalinlaha muraadka maalinlaha waxaad kaga shubanaysaa habka fudud waxa weeyaan 137
qaybta fudud markaad haysatid laftigeega afar labaatan saacadood noo ku hadli kartid saacad saacadeedaad ka furato waad mahadsan